وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. وانتشت روحي وصارت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. waxaan noo bilaabanaya dersigeennii 28 ee kitaabkeennii tacliimu lmutacalim dariiqa tacallum. waxaanu ku soo jirnay fasalkii ka hadlayay fi ljiddi walmuwaadabati walhimmati alcaaliya. waxaanu ka bilaabaynaa biidni illaahi alkariim. masaladii noogu dambaysay shicirkan bay ahayd ama xigmaddan istidaamadana amrays. falaa tacjal biamrika wastadimhu famaa sallaa casaaka ka mustadiimin. halkaasaa macnaha dersigii hore noogu joogay. falaa tacjal ha degdegin biamrika amarkaaga ha ku degdegin, wastadimhu amarkaaga iska daa'im. famaa sallaa ma uusan gubin casaaka ushaada ma uusan gubin, yacnii ma toosiyo ayaa looga jeedaa. ilaa marka usha la hagaajinayo oo qofku uu rabo ushiisa inuu habeeyo, wuxuu rabaa inuu famaa salla istidaamada qofka doonayabaa inta usha yacnii sameeyo marka wax yar ay intaysan aada u guban oo toosinteeda iyo habaynteeda uu sameeyaa weeye. famaa sallaa ay ma uusan toosin casaaka ushaada ka mustadiimin qof doonaya daa'im yeelkeeda qof lamidihi ushaada ma uusan toosin. macnuhu waxa weeye anna khayra wasaa'ili taqwiimi almucawaj, shayga qalloocan oo la qalloociyey wasaa'isha toosintiisa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan wa islaaxi alfaasidi alistidaama walistimraar walmuwaadaba. marka daa'imidda shay walba markii qofku uu shayga daa'imo ayuu waxa weeye uu wanaagsan yahay oo shaygu uu khayr yeelanayaa weeyaan. daa'imidda nafteeda aan ka soo hadalnay istidaamada iyadoo ay ka hadlayaan a'immadii wan wanaagsaneed. abu xaniifa oo kale, abu xaniifa wuxuu ahaa imaam taabici ah oo la kulmay asxaabtii nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam. 9 saxaabi oo ka mid ah ayuu cilmi ka qaatay oo anas binu maalik khaadimkii nabiga uu ku jiro. qaala abu xaniifa wuxuu yidhi liabi yuusuf, wuxuu u yidhi abu xaniifa alla hadlaya abi yuusuf, kunta waxaad ahayd baliidan damiin baad ahayd buu yidhi. fa akhrajadka waxaa ku soo saartay almuwaadabatu daa'imidda. daa'imidda dersiga aad daa'imayso ayaa damiinnimadii kaa soo bixiday. ee abi yuusufow daa'im waxaad ahaa jirta buu yidhi baliid yacnii damiin ah, laakiin fahmayaaladii waxaa kaa saartay daa'imidda. wa iyaaka adiga iyo waxaan marka shayga qofku hadduu daa'imo, qof walboo damiin ahaa jiray maalinka dambe asagoo wanaagsan baad arkaysaa weeye. wa iyaaka adiga iyo waxaan u kala digayaa walkasala wehsida, fa innahu kasalku shu'mun baas iyo balaayo weeye, wa aafatun cudur weeye, aafadaasoo cadiimatun weyn. qaala shaykhu shaykhiibaa wuxuu yidhi alimaamu imaamka ahaa abunasrin la dhihi jiray assafaaru alansaariyu raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi yaa nafsi yaa nafsi yaa nafsii waa munaadaha. ya-da marka loo idaafiya ulmutakalimka luqooyinka ku banaanaa mid ka mida weeyaan. yaa nafsi naftaydiyey yaa nafsi naftaydaay laa turkhii can ilcamali ayuu yidhi. yacnii wuxuu la hadlayaa naftiisa ayuu waaninayaa weeyaan.
naftiisa wuxuu ka wacdinayaa sheekhaani camalka iyo cibaadada in ay kadib dhacdo oo ay ka daciifto ayuu ka wacdinayaa weeyaan. taasuu ka wacdinayaa baa la yidhi. yaa nafsu naftaydiyey oo waxaa looga jeedaa wehsidoo layska yacni shaygu markau noqdo shay jilacsan ha ka jilcin oo ha ka dabcin baa loo isticmaalaa. yaa nafsi naftaydii, yaa nafsi naftayda, yaa nafsi laa turkhii ha ka dibdhicin oo ha ka jilcin, yacni jilaaca wehsidii oonbaa hadda looga kinayonaya ha ka wehsan canilcamali camalfalka ha ka wehsanin weeyaan. filbiri camalfalidda filbiri wanaagga iyo walcadli cadaalada iyo walixsaani wanaagga iyo ixsaanka lagu camalfalo. fii mahalin korasho iyo deganaan dhexdeed xaalad ku sugantay. naftayday waxaan kuu wacdinayaa buu yidhi in aad biriga iyo cadliga iyo ixsaanka adigoo deganaan ku jira inaad ku dhaqanto weligaa ha ka dabcin. yaa nafsi naftaydiyey, yaa nafsi naftaydiyey laa turkhii ha ka jilcin oo ha ka dibdhicin, ha ka wehsan baa looga jeedaa canilcamali camalfalidda filbiri wanaagga, walcadli cadaalada, walixsaani wanaag samaynta iyo ixsaanka lagu camal falo fii mahalin korasho iyo deganaan dhexdeed xaalad ku sugantay. adigoo ku sugan weliba yacni biri iyo ixsaan iyo waxa way ku sifoobay oo haddana deganaan iyo ku sugan in aad wanaaggaa ku dhaqanto naftayday marnaba ha ka dabcin weeyaan. acmaashaa wanaagsan ku dadaal. fa kullu dii camalin buu yidhi, fa kullu dii camalin, fa kullu dii camalin shay walba oo camal fal u saaxiiba fil khayri khayrka lagu camal falo, yacnii qof walba oo camal falid u saaxiiba fil khayri khayrka dhexdiisa wanaag lagu sameeyo muqtabadun buu yidhi. shay walba oo camal acmaal la sameeyo ah, camal la sameeyo ah oo khayrka dhexdiisa lagu sameeyo waa shay la jeclaysta weeyaan. waa shay la jeclaysta buu leeyahy. fa kullu dii camalin wa kullu dii camalin meela qaara qorta. fa kullu dii camalin shay walba oo camal falidu saaxiiba, shay walba oo camal iyo cibaado iyo khayr oo fil khayri lagu camal falo muqtabadun waa mid la majeersado oo la kantoo la jeclaado weeyaan. wa kullu dii kasalin halkaa usoo gudub, shay walboo wehsi u saaxiibana fii balaa-in iyo wa shu'min buu ahaada buu yidhi. bala iyo macnaha waxa weeye shu'm iyo cudur buu ahaaday. wixii wehsi ku saabsan khayr ma lahan, laakiin wixii ku saabsan camalfalidda khayrka taasaa wanaagsan buu ku leeyahy. qaala almusanifu wuxuu yidhi waqad ittafaqa lii waxaa ii waafaqay fii haada almacnaa macnahan waxaa ii waafaqay dhexdiisa. waqad ittafaqa lii waxaa ii waafaqay fii haada almacnaa shicrun baa ii waafaqay. anigana macnahan waxaa ii waafaqa buu yidhi, yacnii aniga naftaydana nadmima ii waafaqay weeyaan. abyaad baa ii waafaqda weeyaan, yacni itifaaqiyaad wey oo hadalkan baa ii waafaqay. ama waqad ittafaqa lii waxaa ii waafaqay fii haada almacnaa, haada shicru baa ii waafaqay. dacii ka tag nafsii naftayday ka tag, attakaasula wehsida iskaga tag, naftiisoo waaninaya. naftayday ka dhaqaaji wehsida iyo watawaani dibdhaca khayrka laga dibdhaco. wa ilaa haddii aad xumaantaa iskaga tegi weydo fahbutii ku sugnaaw fii dalhawaani dulligan iyo darowgan dhexdiisa ku sugnaaw. dacii ka tag nafsii naftayday attakaasula wehsida iskaga tag iyo watawaanii dibdhicidda khayrka laga dibdhaco, labadaa shay iska ilaali. wa ilaa haddii aad taas iska ilaali weydo fahbutii sugnaaw fii dalhawaani darowgan iyo dulligan dhexdiisa ku sugnaaw. sidaasuu leeyaha weeyaan. falam ara ma arkin buu yidhi, falam ara ma arkin lilkusaala alxada yucdii
siwaa nadamin wa xirmaani alamaani falam ara ma arkin buu yidhi alxadda dheeftaasoo yucdaa la siinayo lilkusaalaa kuwa wehsada dheeftaasoo siwaa nadamin shallayto iyo wa xirmaani alamaani hididiiladooda laga hoojiyo wax ka soo haray inay helayaanba ma arkin buu yidhi waa dadka wehsada weeyaan falam ara ma arkin buu yidhi alxadda dheef oo lilkusaalaa dadka wehsada u sugnaatay dheeftaasoo yucdaa la siinayo dheeftaasoo siwaa nadamin shallayto ka soo hartay iyo wa xirmaani alamaani hididiiladoodo laga hoojiyo dadka wehsada oo wax walboo wanaaga ka wehsada wax walboo khayra haddii aad wehsi uga dhaqaajido dheeftaadu maxay noqon doontaa dheeftaadu waxa weeye annadam iyo xirmaanu alamaani weeyaan waa qofkii in uu shallaayo oo arrintiisu ay ku dhammaato shallay ay ku dhammaato nadam bay ku dhammaanaysaa iyo hididiilkiisiioo meel cidlaa ku baxa oo wixii uu hididiishanayay oo uu rajada ka qabay taasna bannaankay u dhacaysaa weeyaan wa qiila waxaa la yidhi kam min xayaa'in wa kam cajzin wa kam nadamin jammin tawallada lilinsaani min kasalin iyaaka can kasalin fi lbaxthi can shubahin famaa calimta wamaa qad shadda canka sali wa qiila waxaa la yidhi kam min xayaa'in xishood badana wa kam cajzin cajas badana wa kam nadamin shallayto badana jammin oo fara badan weeyaan ashyaadaasoo dhan fara badanaa buu ku leeyahy intii ka horeyda laga sifaynaya calaa sabiili lbedel yacni waxa weeye jammin badanaa weeyaan cajziga iyo nadamka iyo xishoodku badanaa jammin waxa weeye ay kahiirin fara badan weeyaan kam min xayaa'in xishood badana xishoodkaasoo jammin fara badan wa kam cajzin awood la-aan iyo cajzi badana kaasoo jammin fara badan wa kam nadamin shallayto badanaa buu yidhi kaasoo jammin fara badan xishoodkaa iyo waxa weeye shallaytadaas iyo cajzigaasoo tawallada kullun minhum mid walba oo ka midih ou ka dhashay tawallada ou ka dhashay kullun mid kastoo minhaa madkuuraadkaas ka mid a can kasalin min kasalin wehsi lil insaani uga dhashay weeye kam min xayaa'in xishood badana wa kam cajzin tabar la-aan iyo cajzi badana khayrka laga cajiso oo laga xishoodo wa kam nadamin shallayto badanaa buu yidhi kaasoo jammin yacnii fara badan kaasoo tawallada ka dhashay min kasalin wehsi lil insaani insaanka uga dhashay alla fara badanaa buu yidhi famaa calimta wixii aada ogaato oo cilmi ahaan aad u barato ku dhaqan facmal wamaa qad shadda wixii shaadooba canka xaggaagana sali culummada weydii halkaas waxaa noogu dhammaaday darsigeennii 28 ee kitaabkeennii tacliimu lmutacalim ilaahay ha nagu anfaco wallaahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu